Mawlid Mukhtar Xasan waa kuma. Mawlid Mukhtar Xasan waa da'yar ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho kaas oo isku diyaarinayo in uu markaasi rajeynayo inuu noqdo mid ka mid ah ciyaaryahanada ugu saameynta badan ee Soomaaliya iyo caalamkaba. Mawlid Mukhtar waxa uu hadda isku diyaarinayaa tartan kala duwan isagoo oo ka tirsan akademiga ka dhisan magaalada Muqdisho. Waxa uu ku haminayaa sanadkan inuu ka mid noqdo ciyaartoyda xirfadda leh kaas oo ka ciyaari doona tartanka degmooyinka gobolka Banaadir oo isku diyaarinayo. Mawlid waxa uu markaasi sameeyay dadaalo kala duwan sidii uu u horumarin lahaa kubadda cagta isagoona waqti walba siiya kubadda cagta maalmaha uu isaga fasaxa uu leeyahay. Sidoo kale Mawlid ayaa mar walba ku dadaala isagoo oo ka hormara ciyaartoyda isku kooxda yihiin iyo sidoo kale bandhigyada wanaagsan oo ka sameeyay tartamada uu soo ciyaaray. Mawlid ayaa markaa waxa uu maalin walba tababar ku sameeyaa xeebaha ku yaala magaalada Muqdisho gaar ahaan xeebta degmada Xamar Jajab oo inta badan uu tababarka halkaasi ku sameeyo ama iskool Buliisiyo oo halkaasi ku tababartaan asaga iyo kooxdiisa. Mawlid waa xidig da'yar oo hadda soo baxay waana xirfadle ka ciyaara boosas badan sida dhaxda qaybihiisa kala duwan ayuu markaa ka ciyaara laacibkani. Waxa uu tayo sare ku leeyahay kubadda cagta iyo sidoo kale dhanka positionada uu markaasi ka ciyaaro. Mawlid ayaa haminaya in uu markaasi ka mid noqdo ciyaartoyda xulka qaranka Soomaaliya iyo sidoo kale kooxaha kubadda cagta dalkeena ka dhisan. Mawlid waa shakhsi aad u jecel kubadda cagta inuu markaasi magac ka sameeyay iyo maamuus. Waxa uuna rajo wanaagsan ka qaba inuu ka miro dhaliyo hadafkiisa inuu horumariyo kubadda cagta.